caanimadu waxay ahayd xilli mid ka mid ah darajooyinka ugu fiican ee qofka bini'aadamkii gaaro. Waxa uu xidhiidh weyn ka dhaxeeyay caan iyo ereyga miisaan. Social media-hu kolkuu soo baxay kadib waxa si weyn u kala leexday xidhiidhkii ka dhaxeeyay caan iyo ereyga miisaan. Caanimadu waxa ay noqotay mid laga xayuubiyay miisaankii ay bulsho ku dhaxlahayd. Hoos u dhacan waxa si toos ah loogu arki karaa wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo, sidoo kalena uu ku liito ama ku yar yahay heerka adeegsiga internet. Wadamadan dhaqaalahoodu yar yahay sidoo kale uu ku hooseeyo heerka adeegsiga internetku waxa sahlan in caan laga dhax bulshooyinka noocan ah ma helayo kaabayaal bulsho oo caanimadiisaasi taageera. Waxa uu noqonayaa sida wadooyinka ama taalooyinka caanka ka dhax ah bulshadaasi geyiga ay degto ee laga yaqaano laakiin aan lagu aqoonin wax gaar ah oo lagu soo raaci karo bulshada awu hal abuuray ama hiraal cusub oo awu jeexay ah. Wadamada uu dhaqaalahoodu sareeyo waxay caanimadoodu leedahay weli waxoogaa miisaan ah. Bulshooyinka dhaqaalahoodu sareeyo waxa ay falowar-gareeyaan madadaalada iyo filimada. Qofkaasi waxa uu subscribe yahay ama falowar-gareeyaa applicationada kala duwan iyo website-yada lacagta ah ee laga daawado muuqaalada madadaalada. Bulshooyinkani dadka ay falowar-gareeyaan waa dad inta badan la fahmo waxyaabaha ay soo gudbinayaan. Qofku haddii uu Financial Times ka yahay followers ama subscribe waa qof xiiseeya arrimaha dhaqaalaha ay isku gadiyayaan iyo wixii hadba xog ka cusub. Haddii uu subscribe ka yahay ama follower qofku NTV wararka ama akhbaaraha cusub ee soo kordhay iyo sida ay wax yihiin. Bulshooyinka uu dhaqaalahoodu hooseeyo ma helaan cid ay falowar-gareeyaan ama ay subscribe yiraahdaan sababtoo ah binaya waxa uu baahan yahay dhaqaale. maadaama aanu dhaqaale jirin, bulshooyinkani waxay noqonayaan kuwo la falgalaya janjeera cid kasta oo soo gudbisa ama ka hadasha wixii dareenkooga la cayda iyo ka xanaajinta cid kasta dareenkooga kicinaya waa ay u jilicsan yihiin sababtoo ah bulshooyinkani way u nugul yihiin cid kasta oo wixii shucuurtooda wax ka bedelaya soo gudbinaysa. waa ay falowar-gareeyaan, raacaan ama la socdaan wax soo gudbinaysana sidan ayaa u dhib yar ama riqiiso ah. Markii ay kala leexdeen xidhiidhkii u dhaxeeyay caannimo iyo ereyga miisaan, waxaa soo baxay dad badan oo caan ah laakiin xataa uu ka miisaan culus yahay qof aan caan ahayn oo aanay bulshadu intiisa badan wada aqoon. Bulshooyinka caannimada ku haysta miisaan iyo dhaqaale ama halbeeg tilmaan mudan haddii la dhex keeni lahaa bulshooyinka ay sahlan tahay in dhexdooda caan laga noqday, waxaa suuragal ah inuu jahawareer iyo walbahaar ku furmi lahaa sababtoo ah si kastaba ha ahaatee ereyga caannimo wuxuu u baahan yahay in dib loo qeexo, waayo halbeeg yaa u lahaa iyo sidii ay wax ahaan jireen haddeer way ka lumeen oo jidkaa mid ka duwan. Qof keliya ay caannimadiisu ku eg tahay social media-ha iyo qof aan social media-ha laga aqoon laakiin nolosha caadiga ah caan ka dhax ah. Haddii aad halkan soo gaadhay daawade in aad macluumaad ama xog ka korodhsatay muuqaalkan, like saar channelkana subscribe oo ku soo biir. wabillahi